أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولالكين آدم نور حسن waxaad ku soo dhawaateen kanaalkana muuqaal production insha Allah muuqaalkan hadii aan wuxuu ku saabsan yahay course aan ku baran doono softwarekan lagu magacaabo Filmora versionkan coursegan aan ku qaadan doono hadii aan wuxuu noqonayaa version 8.7.1 Filmora version badan ayuu leeyahay waxaa jira Filmora 9 waxaa kaloo jira sidoo kale Filmora Pro softwareka coursegan aan ku bixin doono wuxuu noqon doonaa 8.7.1 ayuu noqon doonaa softwareka marka howlo badan ayuu qabtaa softwarekan baaxadiis aad ay u weyn tahay Filmora hadii aad fahantid mid kamid ah waxaan rajaynayaa dhamaantood inaad wada fahmi doontid Filmora Pro Filmora 8.7.1.3 ayaa jiro sidoo kale Filmora 9 ayaa jiro marka softwareka waa isku designkiisa isku mid toolskiisa ayaa aad u fara badan marka update ay ka soo dhigeen marba tool ay ka soo bedeleen hadaba coursegan insha Allah waxaan ku baran doonaa applicationkan Filmora ayaan ku baran doonaa hadii leedmo waxaan idin balan qaadi doonaa softwarekan oo idil min bilow ilaa dhamaad inaynu ku qaadano coursegan intaynu ku guda jirno waxaanu baran doonaa course outline-keen wuxuu noqon doonaa ilaa iyo 12 qodob ayaan ka soo diyaariyay ugu horeyn inaynu ka hadalno introduction inaynu ka bixino Filmora sidoo kale inaynu ka hadalno interface-ka uu leeyahay Filmora oo ujeedin tools aad u badan ayuu leeyahay application-ka toolskan oo idil inaynu ka hadalno iyo shaqooyinka ay qabtaan sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa cut and split jarid iyo kala barid ha ahaato muuqaal ama cod ama sidoo kale sawiraan ha ahaadaan qaabka aad u sameyn lahayd sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa add text sida loogu daro qoraal muuqaalka sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa extract audio qaabka loo kala saaro video iyo music haday isku guda jiraan qaabka aad u kala saar lahayd extract aad u sameyn lahayd sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa green screen-ka qaabka loo isticmaalo videoyada green screen-ka ah sida aad u isticmaal lahayd aynu ka hadli doonaa qodobkan toddobaad waxaynu ka hadli doonaa hadii ay leedahay color correction aynu ka hadli doonaa oo loo isticmaalo in lagu bedelo colorska videoyada iyo sawiraanta inaad ku bedeshid sidoo kale qodobka 8aad waxaynu ka hadli doonaa transition af Soomaaliyan waxa la lahaa laba shay ha ahaadaano laba muuqaal ama laba sawir intii yar u dhaxaysa markay kala gudbayaan af Soomaali ahaan intii yar u dhaxaysa oo transitionka loo isticmaalo aynu baran doonaa qodobka 9aad waxaynu baran doonaa creating lower third qaabka aad u sameyn lahayd aynu baran doonaa sidoo kale waxaynu baran doonaa kan 10aad qodobka 10aad subtitleska videoyada qaabka loo fasiro aynu baran doonaa sidoo kale 11 waxaynu baran doonaa videoga markuu dhamaado end screen-ka videogan waxa soo saaray shirkadda soo saartay special thanks hadii aad u sameyn lahayd qaabka loo sameynayo end screen-ka markuu dhamaado muuqaalka sidoo kale qodobka 12aad waxaynu baran doonaa rendering-ka ama muuqaalkii wixii dhan ku dhamaadeen qaabka produce aad ugu sameyn lahayd aad u soo saari lahayd aad asxaabtaada iyo meelaha kale aad ula wadaagi lahayd aynu baran doonaa insha Allah 12kan qodob ayaan ka soo diyaariyay walaalayaal application-ka toolskiis aad ay u badan yihiin labadan qodob aan u arkay marka inay aas ay yihiin oo basic-ga qofka intaan fahman waxa waaye insha Allah waxaan rajaynayaa wax kale oo ku soo adkaan doono inaysan jirin wixii oo soo adkaadan insha Allah waan isla joognaa marka walaalayaal inuu guud galno waxaynu ka bilaabi doonaa hadii aan leedno introduction aynu ka bixin doonaa softwareka Filmora hadaba aynu guud galno walaalayaal barnaamijkeena wareen waxaynu ka hadli doonaa introduction aynu ka hadli doonaa introduction-ka Filmora 8.7.1 application-kan waxaad kala soo degi doontaa hadii aan leedmo link ayaan waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka hadii aadan aqoonin sidoo kale waxaan ku soo dhigi doonaa comment-iga ugu horeeya ee muuqaalkan ayaan beam kugu dhigi doonaa waa comment-iga ugu koreeyo meesha aad ku dhufanaysaa softwareka ayaad si toos ah website-kiisa ayuu ku geyn doonaa waad la soo degi doontaa marka application-ka waxyaabaha ani caqabad igu noqday aan idin tusi waayay qaabka loola soo degayo waxay tahay ani ma isticmaalay saaxiibayaal wireless ma isticmaalay marka waxaan isticmaalaa mobile data awood uma lahan telefonkeyga inaan telefonkii aan ku xariiriyo computerka aan idinku tuso marka awoodaas ma lihi laakiin waxaan idin soo dhigi doonaa softwareka linkigiisa qaybta hoose videoga description-ka aan idin soo dhigi doonaa waxyaabaha ani aan awoodin ma awood waxyaabaha ani aan awoodin waxaan isku dayaa intii karaankeyga inaan idinla wadaago aan sharing aynu wada sameyno
marka introduction-ka waxaan rajeynayaa intaas ayaan ugu bixi doonaa Filmora-na waxaa soo saartay shirkaddan Wondershare ayaa soo saartay. Wondershare-na marka qaybo badan ayuu kala leeyahay sida hore oo soo sheegayba. Filmora sidoo kale waxaa jira Wondershare video editor mid lahayo jiro, sidoo kale waxaa jiro Filmora 9, Filmora 8.7.1, Filmora 8.7.3 marka version badan ay soo saartay shirkaddan. marka software-kan aad ayuu u fiican yahay saaxiibayaal. haddaba introduction-ka intaan ayaan ugu gudbi doonaa, waxaan u gudbi doonaa interface-ka ayaan u gudbi doonaa qodobkan labaad oo interface-ka wejiga hore ee software-ka inaanu baranno, sidoo kale ayaan u gudagalno interface-ka inaanu baranno. Horeyn si aad u baratid interface-ka software-ka computer-kaad markaad soo gelisid waad soo furaysaa. waad ujeedaa software-ka intaana wuxuu leeyahay tools ayuu leeyahay. marka qaybtan ayaan ka bilaabi doonaa. qaybtan waxaa lagu magacaabaa timeline ayaa lagu magacaabaa. timeline-kan shaqada uu qabto waxaa waaye waxaad keenaysaa ama aad ku jarjaraysaa waxyaabaha videoyada ama ha aadaan cod ama music ama sawiraan, inta ayaad ku jarjaraysaa. howsha ugu badan meeshay ka dhacayso waxaa waaye inta waaye. software-da dhammaan lagu edit gareeyo barnaamijyadana way ka wada sameyn yihiin. marka software-kan wuxuu leeyahay sidoo kale qaybtan markaad fiirisiin oo insoo zoom gareyn doona insha Allah meel walba. labadan waxaa waaye video track waaye. adigoo video track aad isticmaalaysid, video track qaybta hoose ma keeni karto. tusaale ahaan labadan video track waaye, meesha ma keeni kartid video track. waxaa loogu talagalay audio track ayaa loogu talagalay, cod ayaad keeni kartaa. sidoo kale meeshan waxaa waaye text track waaye, labadana video track. intaan waad kasii badin kartaa haddii aad u baahan tahay trackiskaada. qaybtan waxaad soo furaysaa add new track ayaad soo furaysaa. text track hadda text waxaa waaye hal xabo waaye, ilaa waxaad ka dhigi kartaa 5 xabo ayaad ka dhigan kartaa text track. sidoo kale music track si 2 xabo ayaa noo yaal music track, ilaa waxaad ka dhigi kartaa 9 xabo ayaad ka dhigi kartaa oo music track. marka ani uma baahni, haddaad u baahan tahay waad soo furanaysaa. qaybtan waxaa lagu magacaabaa display ayaa lagu magacaabaa. waa shaashada aad ka daawan lahayd waxyaabaha adi meeshan aad ku sameynaysid, meeshaad ka daawan lahayd waa meeshan display ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale meeshan markaad fiirisin waxaa lagu magacaabaa import media, meeshaad ka soo gelin lahayd computer-kaada waxyaabaha aad ku hagaajin rabtid. meeshan import media-ga wuxuu noqon karaa video ayuu noqon karaa, sidoo kale wuxuu noqon karaa image ayuu noqon karaa, sidoo kale wuxuu noqon karaa audio ayuu noqon karaa. marka intaano idil ayaa soo gelin kartaa. marka qaabab badan ayaad u soo gelin kartaa media-ga. waxaad ku dhufanaysaa import media ayaad ku dhufanaysaa, sidan waa u soo gelin kartaa. sidoo kale waxaad ka soo gelin kartaa qaybta waxaad imaanaysaa file ayaad imaanaysaa, waxaad ka dooranaysaa import media, sidoo kale waxaad kasii dooranaysaa import media file ayaad ka dooranaysaa. waad ujeediin meeshan hadda aynu joognana waa media, waad ujeediin media waaye. sidoo kale meeshan markaad fiirisin waxaa waaye music aad ka helaysaa. application-kan music free intaan dhan aad ujeediin. qaarkood waxaa waaye waad la soo degaysaa, waad ku dhufanaysaa internetka ayaad ku xiriirinaysaa, waad la soo degaysaa. waxaad ka heli kartaa music badan, sound effect ayaad ka heli kartaa. sound effects aad u badan ayaa ku jira, marka waad isticmaali kartaa dhammaantooda. sidoo kale qaybtan markaad imaatid waxaa waaye text waaye. textigana way badan yihiin. waxaad ka helaysaa titles, cinwaano ayaad ka helaysaa. cinwaano aad u qurux badan ayaad ka sameyn kartaa. sidoo kale waxaad ka helaysaa subtitles ayaad ka helaysaa, videoyada fasiraada ah ayaad ka helaysaa. sidoo kale meeshan lower thirds ayaad ka helaysaa. marka end screen-kana shaashada markuu dhamaado mowduuca aad ka hadlaysid waxaa waaye meeshan hadda markaad fiirisin. tusaalehaan midkan ayaan soo doortay, play markaan dhaho waad ujeediin end screen-kii waaye. qaabkan ayaad u isticmaali kartaa end screen-kana haddii aad u baahan tahay. sidoo kale meeshan over layout-kan waynu baran doonaa insha Allah. waxaad ka helaysaa haddii aad u baahan tahay videogaada 16:9 ratio haddii aad kor iyo hoos inaad ka yaraysid iyo waxyaabo badan ayuu leeyahay. marka waanu arki doonaa qaabka loo isticmaalo over layout-kana. sidoo kale qaybtan waxaad ka helaysaa elements ayaad ka helaysaa. haddii aad rabtid aroosyo iyo barnaamijyo haddii aad sameynaysid waad isticmaali kartaa kuwana. split screen muuqaalada is-ag yaalo waad sameyn kartaa oo aad u tiro badan ayuu leeyahay. kuwan waad adeegsan kartaa. qaybtan korna markaad fiirisiin editka waxaa ku jiro undo, sidoo kale shortcut-kiis oo ah control z, redo, control plus y, cut, control x. insha Allah waynu baran doonaa. split waxaad u isticmaali kartaa markaad wax kala jaraysid, control plus b. sidoo kale split intan wuu noo yaalaa.
intana wuu noo yaalaa. qaybta markaad fiirisid exportinga videogaada waxyaaba uu ku saabsan yahay idil markaad dhammaysid qaabkaad export aad inta ayaad ka sameynaysaa. sidoo kale intana waad ka sameyn kartaa isku mid exportingan. marka meesha markaa imaatid haddii aad u baahan tahay account inaad ka yeelatid Filmora shirkadda sign up ayaad ku dhufanaysaa, account ayaad ka yeelanaysaa. haddii projectigaada aadan rendering aadan u rabin inaad save garaysid aad u baahan tahay qaybtan safeka ayaad isticmaali doontaa. haddii tools badan aad u baahan tahay website-ka ayaad si toos u booqan kartaa, more effects-ka ayaad ku dhufanaysaa. message-kan waxaa waaye cabasho haddii aad ka qabtid application-kan cilad iyo waxyaabo kale aad ku aragtid waxaad la xiriiri kartaa qaybta help center-ka ayaad la xiriiri kartaa. meeshaan markaad fiirisidna light skin ayaa ku qoran. skinka hadda kii oo jirka inta uma taagno, skinkan hadda wuxuu u taagan yahay like themes ahaan ayuu u taagan yahay ama color. hadda themiska aynu haysano waxaa waaye black waaye. light skin markaan ku dhufto themeskan dhan wuu isbedelayaa, cadaan ayuu noqonayaa saaxiibayaal. waad ujeediin cadaan ayuu noqday. marka cadaanka idinkulama talinaya, aad ayuu qaabdaran yahay, indhahaada xitaa garaafuu kaa gaarsiinaya ma fiicno. marka dark skinka iska isticmaal. dark skinkan qaabkan ayaa loo isticmaalaa. qaybtan hoose markaad fiirisin displayga meeshan waxaa waaye videogaada ayaad ka wadaysaa like si shay walba aad u aragtid. kan waxaa waaye play waaye, kanna pause waaye, kanna dib ayaad usoo celinaysaa. waxyaabahan way iska wada fududiin. qaybtan recording ayaad u isticmaali kartaa. meeshan screenshot haddii aad meeshan camal markaad taagantahay screenshot inaad ka qaadid qaybta waxaad ku dhufanaysaa screenshot ayaad ka qaadaysaa. waad ujeedin inta ayuu noo imaaday screenshotkeena. sidoo kale volumeka markaad play aad aadid shayga aad u baahan tahay, haddii aad u baahan tahay volumeka waad iska gaabin kartaa, haddii aad u baahan tahay waad dheereyn kartaa. muuqaalka markuu waxyaaba uu ku saabsan yahay dhammaysidna waxaad rabtaa si full screen ah inaad u aragtid waxaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose ayaad ku dhufanaysaa. waxaa waaye size-ka ayaad weynaysanaysaa. waad ujeediin videogan markuu waxyaaba uu ku saabsan yahay idil markaad dhammaysid waaye. meeshaan markaad fiirisin waxaynu ku haysanaa calaamadan waxaad u isticmaali kartaa geeskan videogaada contentiska intuu ka kooban yahay oo idil ayuu kusoo bandhigayaa. sidoo kale meeshan waxaa waaye timeline-ka ayaad ka weyneyn kartaa si shay walba markaad jarjaraysid si fiican aad uga aragtid. sidoo kale plus minuskan waad isku mid, pluska waad isticmaali kartaa si aad usoo weynaysid, minuskan waad iska yareynaysaa. kan waxaa loo isticmaalaa tragan aad ujeediin. hadda tusaale ahaan qoraalkan ayaan waxaan rabaa ilaa iyo shaashada computerka inta la eg inaan arko ka badan. tusaalehaan hadda markaan saan dhaho traga hadda aad uu dheeryahay soomaan inaan sidaan usoo jiido ilaa iyo dabada dambe oo traga aan imaado. marka meeshan waxay kaa saacidaysaa ilaa screenka intaan intuu ku dhammaanayo igu ekeysay aad dhihi kartaa. marka inta aan ku dhufto waad ujeediin inta ma dhaafaayo, ilaa intaan bis uu noqonayaa. si waadix ayaad u arkaysaa shay walbana. qaybtan waxaad u isticmaali kartaa waxaa waaye audio mixer waaye. codadka iyo waxyaabahan ayaad ku hagaajin kartaa. sidoo kale video, labadan video waaye, labadana music waaye, waad ka hagaajin kartaa. marka qaybtan kalena aynu imaano. qaybtan hore aynu usoo sheegay qaybtan editka ayay khusaysaa. undo iyo redo waaye labadan. sidoo kale meesha markaad fiirisiin waxaa waaye split waaye. control B ayay u dhigmataa. inaad tusaalehaan inta ayaan taaganahay inaan jara ayaan u baahanahay, split ayaan ku dhufanayaa. ama waxaan ku dhufanayaa manqaska agtiisa mar walba indicatorkan agtiisa waxaa ku yaalo split ayaa ku yaalo. split waad ku dhufan kartaa. waad ujeedinayaan fila split midkaad u baahan tahay marka waad iska tuuri kartaa. marka intaan shayga ugu muhiimsan ayaan isleeyahay saaxiibayaal interface-ka. haddaba waxaan u gudgali doonaa qodobka kale oo xiga oo ah cut iyo split qaabka loo sameynayo aynu arki doonaa insha Allah. si aynu u barano cut and split waxaan soo dooranayaa muuqaal ayaan soo dooranayaa. muuqaalkan ayaan soo doortay. qaybta waxaan keensanayaa timeline-ka ayaan keensanayaa. kadib waad ujeediin haddii aad u baahan tahay timeline-kaada waad soo yareyn kartaa. marka ani qaybtan ayaan ka dooranayaa. ugu horeyn waxaad imaanaysaa meeshaad u baahan tahay indicatorka inta aad ka imaan kartaa. sidoo kale saaxiibayaal waxaan idinka ilooway timeline-kaada intana waad ka weyneyn kartaa. waxaad imaanaysaa qaybtan numberska oo saacadda oo muuqaalka intuu soconayo durationka uu ku tilmaamaya dushiisa imaanaysaa. hadda mouse pointer caadi waaye. inta markaad imaatin waxaa waaye falaar kale ayuu isu bedelayaa. sidaan markaad aadidna increase iyo decrease ayaad ku sameyn kartaa. sidaan waad u kala weyneyn kartaa timeline-kaada shayga ku yaalo, video ha ahaado ama pictureska. indicatorka aad imaanaysaa marka si aan u sameyno cut, si aan wax u jarno. markaad imaatid
waxaad ku dhufan kartaa manqaskan ayaad ku dhufan kartaa sidoo kale manqaskan waad ku dhufan kartaa isku mid haddii kale control P ayaad taabanaysaa waad ujeedin aad split ayuu noo noqday split hadda sidaan aynu ku sameynay inaanu kala barno midkaad u baahantahay aad dooranaysaa hadda midkan ayaan doortay waxaan taabanayaa keyboardka del ayaan taabanayaa waad ujeedin hadda wuu jarmay sidaan aynu ku kala jarnay sidoo kale midkan ayaad ka dileedi kartaa haddii aad u baahan tahayna delkan ayaad taabanaysaa marka walaaleel cut and split qaabkan ayaa loo isticmaalaa adigoo isticmaalaya Filmora 8.7.1 sidoo kale waxaan u gudbi doonaa qodobka kale oo xigo add text qaabka qoraal loogu daro muuqaalka add video text aad ugu soo dartid ugu horreyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalkaada ama waxaad soo dooranaysaa sawir ayaad soo dooranaysaa si aad text aad ugu soo dartid ani hadda u jeedin sawirkan ayaa soo doortay marmarka qaarkood waxaad arki doontaa aspect ratio aad soo doortay haday 16:9 ay tahay meelahan madmadowga aad arki doontaa si aad ugu bixisid madmadowgan waxaad soo furaysaa ugu horreyn sawirka aad dooranaysaa kadib qaybtan cropka aad ku dhufanaysaa sidoo kale waxaad dooranaysaa 16:9 ayaad dooranaysaa meeshaad rabtid ayaad ku aadinaysaa marka hadda u jeedin hadda madowgii wuu ka baxay okay aad ku dhufanaysaa si toos hadda madowgii wuu ka baxay markaan soo weynay waad ujeedin screenka dhan uu qabsaday hadda sawirkan ayaa noo diyaarsan waxaan ku sameynaynaa add text qoraal ayaan ku daraynaa waxaad imaanaysaa qaybtan add text ayaad imaanaysaa textigan ayaad imaanaysaa intaanoo text ayaa ku jiro markaa midkaa jeceshay aad dooranaysaa tusaale ahaan title ayaad u baahan tahay inaad samaysid cinwaan inaad u samaysid ayaad u baahan tahay waad dooranaysaa ani hadda midkaana rabaa inaan sameeyo laba option ayaad ugu soo dari kartaa calaamad plus ayuu ku siinayaa video add to projectga aad ku soo dar shaygaad u baahan tahay sidoo kale drag and drop ayaad ku sameynaysaa waxaad keenaysaa qaybta text ayaad keenaysaa meel kale ma dhigi kartid inta aynu keensanaynaa marka si aad u edit garaysid hadda marka play aan dhahaynaa waanu arki doonaa textigan play markaan dhaho waad ujeedin titlekan qaabkan ayuu u samaysan yahay marka si aad edit aad ugu samaysid titleka cinwaankaad rabtid aad ugu qortid qoraalka ayaad imaanaysaa dushiisa right click ayaad leedahay right click markaad dhaadid waxaad ka dooranaysaa edit ayaad ka dooranaysaa ama control E ayaad taabanaysaa edit markaad taabatid meeshan waxaad ku qori kartaa waxyaabaha aad u baahan tahay tusaale ahaan waxaan leeyahay welcome camal ayaan ku qorayaa welcome markaad ku qortid midkan hoose haddii aad u baahan tahay waad iska delete garayn kartaa del ayaan ku dhufanaya waan iska deleedayaa midkan waan iska deleedaynaa uma baahni sidoo kale haddii aad u baahan tahay midkanna waad iska deleedi kartaa qoraalkan bas ayaan u baahan nahay tusaale ahaan centerka ayaan ku aadinaynaa intaa markaa samaysid waxaad ka dhigi kartaa bold ayaad ka dhigi kartaa farta sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa Italy jif ayaad ka dhigi kartaa meeshaan waxaad ka bedeli kartaa styleka qoraalka ayaad ka bedeli kartaa tan aanu dooranno dib uu isbedelayaa okay aanu ku dhufanaynaa aad u jeedin hadda markaynu play dhahno aynu aragno marka qaabku ku soo gali doono aan soo weyneeyo play aan ku dhufanayaa cinwaanka qaabkan ayaad u sameyn kartaa ilaa iyo dhowr xabo ayuu leeyahay oo text ah oo noocyo badan ayuu leeyahay midkaad u baahan tahay aad ku sameyn kartaa intaan oo dhan ayuu leeyahay qaarkoodna wuxuu ku weydiinayaa inaan la soo degtid mid kale aanu tijaabino midkan waxaan ku sameynayaa projectiga ayaan ku soo darayaa aynu aragno marka qaabkan ayuu u samaysan yahay si aad edit aad ugu samaysid qoraalka ayaad imaanaysaa right click ayaad leedahay edit ayaad ka dooranaysaa kadib qoraalka ayaad ka bedelaysaa meeshan ku qoran muuqaal production ayaan ku qoray midka yar oo hoose haddii aad u baahan tahayna waad ka bedeli kartaa subscribe ayaan ku qoray marka fartana waad iska bedeli kartaa colorskana waad iska bedeli kartaa sidaad rabtid ayaad yeelaysaa okay aan ku dhufanayaa marka aynu aragno qaabkay ku soo bixi doono play aan ku dhufanayaa waad ujeedin muuqaal production subscribe marka aad text saaxiib yaal qaabkan ayaad u sameyn kartaa waxaan u gudbi doonaa qodobka kale oo xigo oo ah extract audio qaabka loo kala saaro video iyo cod ayaan u gudbi doonaa insha Allah si aynu u fahanno extract audio ugu horreyn waxaan soo dooranayaa muuqaal ayaan soo dooranayaa muuqaalkan waxaan ku sameynayaa drag and drop ayaan ku sameynayaa waxaan keensanayaa Filmora timelinekiis ayaan keensanayaa muuqaalka markaan keensado waad ujeedin hadda muuqaal ayaa ii diyaarsan muuqaalkan cod ayuu wataa play markaan ku dhufto aynu daawano aynu aragno inta aadan muuqaalka daawan waxaan ka codsanayaa kanaalka haddii aad ku cusub tahay taawa calaamadda subscribe-ka waad ujeedin marka
muuqaalkan hadda cod ayuu wataa marka waxaan u baahannahay codka inaynu ka saarnaa ayaan u baahannahay waxaad sameynaysaa simply muuqaalka aad waxaad ku sameynaysaa right click aad leedahay waxaad ku dhufanaysaa audio detach aad ku dhufanaysaa audio detach aad ku dhufanaysaa ka saar muuqaalka codka waaye ama waxaad ku dhufan kartaa si gaaban control plus alt plus d aad ku dhufanaysaa waad u jeedinaan filaya qaybta hoose waxaa inoo imaaday cod ayaa inoo imaaday tusaalehaan midkan inta markaynu keenno hadda play markaynu dhahno qaybta hore muuqaalka waxaa waaye cod dhan ma yeelan doono haddii cod ayuu lahaa hadda cod dhan ma yeelan doono inta markuu imaadana cod ayuu yeelanayaa marka qaabkan ayaad u kala saari kartaa muuqaal iyo cod haddii aad u baahan tahay midkaan rabtidna waad iska tuuri kartaa marka audio detach ama extract audio qaabkan ayaa loo isticmaalaya adigoo isticmaalaya Filmora 8.7 insha Allah waxaan u gudbi doonaa qodobka kale oo xiga oo ah green screen ka qaabka loo isticmaalo videoyada green screen ka qaabka loo isticmaalo ayaan u gudbi doonaa si aynu u fahanno green screen ka qaabka loo isticmaalo ugu horeyn waxaan soo dooranayaa muuqaalka green screen ka aan soo dooranay muuqaalkan waa green screen waxaan keensanayaa qaybta Filmora aan keensanayaa markaan keenso waxaan u baahanahay sawir background ayaan u baahanahay sidoo kale waxaan soo dooranayaa background ayaan soo dooranayaa tusaale waxaan soo doortay background-kan ayaan soo doortay background-ka ayaan soo doortay background-ka waxaan ku sameynayaa ugu horeyn drag and drop ayaan ku sameynayaa background-ka noo soo weynay xoogaa yar marka background-ka mararka qaarkoodna hore ayaan idinku soo sheegay sidaan ayaad arki doontiin waad la ekaysiinaysaa shaashada idil hadda madmadow ayaa ku jiro si aad 16:9 aad ugu dhigtid qaybtan crop imow waxaad ka dooranaysaa aspect ratio 16:9 kadib meeshaad u baahan tahay aad ku aadinaysaa muuqaalka waxaad ku dhufanaysaa okay aad ku dhufanaysaa hadda shaashada ay la soo ekaaday muuqaalka kadib green screen ka waxaan ku sameynaynaa drag and drop ku sameynaynaa qaybta waxaan keenayaa hoose aan keenayaa qaybta hoose aan keensanayaa hadda muuqaalka markaynu play aan dhahno green screen waaye waad u jeedin diyaarad helicopter waa dhankan ay ka soo galaysaa midigta ah marka waxaan rabnaa background-kii kale oo kore ayaan u baahanahay background-kan inaanu ku soo muujino ayaan u baahanahay background-kan aad u jeedin waxaad sameyn kartaa muuqaalka green screen-ka ayaad imaanaysaa dushiisa right click ayaad leedahay waxaad ka dooranaysaa green screen ayaad ka dooranaysaa green screen markaad ka dooratid current color-ka laga saari doono aynu dooranay waxaa waaye oo muuqaalkeenu ku saabsan yahay green waaye meeshan ayaad ku dhufanaysaa make transparent clip-kan ayaad ku dhufanaysaa oo chroma keyga si active ay ugu qaadi doonaa waad u jeedin adigoonan okay dhihin xitaa waad daawan kartaa qaabku hadhow muuqaalkaada uu noqon doono waad u jeedin ayaan filayaa diyaaraddii hadda si toos intay ka soo galaysaa green screen dhan ma wadato okay ayaan ku dhufanayaa okay markaan ku dhufto muuqaalka hadda aynu soo bilowno screen-ka ayaan weyneynaynaa waynu arki doonaa insha Allah green-ka markaanu ka qaadnay shaashada green screen-ka ah waad u jeedin ayaan filayaa saaxiibayaal green screen-ka waynu ka qaadnay meeshaan rabna ayaan geyn karnaa waxyaabahan u baahanahay green screen-ka ku saabsan marka adigoo isticmaalaya Filmora 8.7 qaabkan ayaad u isticmaali kartaa green screen-ka insha Allah waxaan u gudbi doonaa qodobka kale oo xiga oo ah color correctionska pictureska iyo videoyada qaabka loogu sameeyo color correctionska ayaan u gudbi doonaa insha Allah si aad u fahantid color correctionska qaabka loo sameeyo color correction ugu horeyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalkii ama sawirkii aad soo dooranaysaa aad u baahan tahay color correction inaad ku samaysid ani ahaan sawirkan ayaan ku sameynayaa color correction colorkiisa iyo waxyaabo kale inaanu ka bedelno ayaanu sameynaynaa ugu horeyn iska fiiri waxyaabaha muuqaal ha ahaado ama sawir ha ahaado screen-ka iska fiiri meelahan qaybtan crop-ka ayaad soo furaysaa 16:9 ayaad ka dhiganaysaa hadba waxyaabaha aad sameynaysa aspect ratio aad ku xiran tahay haddii aad sameynaysa Instagram haddii aad sameynaysid portrait muuqaal ah iska fiiri aspect ratio-gan kadib okay ku dhufo hadda waad u jeedin aspect ratio-gan waan hagaajinay sawirka hadda muuqaal ma soo dooran sawir aynu soo dooranay auto correction-ka aanu ku rabno inaanu ku sameyno kadib baad dooranaysaa shayga aad u baahan tahay auto correction-ka waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ayaad ku dhufanaysaa oo auto correction-ka ayaad ka hagaajin kartaa markaad ku dhufatid qaybtan colors-ka aad soo furtid temperature-ka iyo tinigan ayaad waxaad ku sameyn kartaa hadda meeshan si fiican u fiiriya temperature-kiisa waxaan ku sameynaynaa minus aynu ku sameynaynaa balaas haddaad ku samaysid maxaa waaye hadba color-ka qaabka aad rabtid muuqaalkaada inuu ku soo baxa
ayaad waxaad ku sameynaysaa. Midkan tinigana sidaad rabtid ayaad yeelaysaa. Hadba muuqaalkaada qaabkuu kusoo muuqanayo adigaa yaqaano, laakiin labadan shay ayaad hagaajin doontaa insha Allah. Awal si fiican u fiiri, meeshaan hadda color correctionka waanu ka bedelnay. Awal sidaan ayuu ahaa, haddana sidaan ayaanu ka dhignay. Marka color correctionkan qaabkan ayaad u sameyn kartaa adigoo isticmaalaya video ama sawir. Color correction qaabkan ayaa loo sameeyaa. Sidoo kale waxaynu u gudbi doonaa qodobka kale oo xiga oo ah sida loo sameeyo transitionska adigoo isticmaalaya laba video ama sawir ha ahaadan. Transitionska qaabka loo sameeyo gudbi doonaa insha Allah qodobka 8aad. Si aad u sameysid transition, ugu horeyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalka aad soo dooranaysaa, ama waxaad soo dooranaysaa inaad soo dooratid sawiraan. Aniga waxaan rabaa dhowrkan sawir xab inaan ku sameeyo 40 xab sawiraan rabaa inaan ku sameeyo transition. Kadib qaybta timeline-ka ayaan keensanayaa. Mar walba waxaan idin sheegayaa saaxiibayaal inaad iska hagaajisiin aspect ratio. Hadda tusaale mootada camal aspect ratio-gooda way saxan tahay meeshaan. Sidoo kale midaan labaad markaan imaado wuu saxan yahay. Kan markaan imaado aspect ratio-giisu ma saxno. Qaybtan ayaan imaanayaa crop-ka 16:9 ayaan ka dhigayaa. Meeshaan raba ayaan ku aadinayaa shaashadda. Kadib okay ayaan ku dhufanayaa. Midkan kale ugu dambeeya ayaan imaanayaa. Waad u jeedin aspect ratio-giisu ma saxno. qaybtan crop-ka ayaan ku dhufanayaa 16:9 ayaan ka dooranayaa. Meeshaan raba ayaan ku aadinayaa. Kadib okay ayaan ku dhufanayaa. Intaa markaan sameeyo marka timeline-ka ayaan soo weyneysanaynaa. Labadan sawir hadda sawirkan bilay markaan dhaw markuu dhamaado sawirkan si toos ay u soo galayaa, wax oo uma dhaxeeyaan transitions ah. Marka si aad transition aad ugu sameysid meelahan ayaa la transitionska meelahan ayaa la soo gelin karaa inta yar oo u dhaxeysa laba muuqaal ama laba sawir. Marka waxaan soo dooranayaa qaybtan transitionska ayaan soo furayaa. Ani badna application-kan waxyaabo aad ka ugu jeclahay waxa way wuxuu leeyahay 3D transition aad u qurux badan yahay, like After Effects waaye. Marka 3D-gan ayaa aad u fiican. Tusaale midkan oo kale aan soo qabto inta aan ku deenayaa transitionska. Haddii aad u baahan tahay waxa way crop ayaad ku sameyn kartaa, waad soo yareyn kartaa. Midkan kale inta noo keen crop ku samee xoogaa yar. Sidoo kale kan soo qabo inta noo keen xoogaa yar crop ku samee. Muuqaalkan hadda waxa way transitions ayaan u sameynay. Sidoo kale qaybaha horena transition waad u sameyn kartaa. Hadda markaynu play aan dhahno waad u jeedin hadda waan soo weynay play ayaan ku dhufanayaa. Waad arki kartiin transitions aad u qurux badan ayaa soo gali doono. Fiiri waad u jeedin qaabku ku soo galay transition-kan aan ku soo celiyo. Meeshaan si fiican u fiiriya. Fiiri meeshaan transition aan inna bacaadi ahayn. Sidoo kale mid kale ayaa soo gali doono dhowr xabo 3 xabo. Waad u jeedin aan ku soo celiyo midkaana. Waa transition aad u qurux badan waa like After Effects waaye. Marka transitioniskan aad ay u qurux badan yihiin. Transitioniskan qaabkan ayaa loo isticmaalaa laba muuqaal ama sawir waad u isticmaali kartaa transition. Hadba walaalayaal transition qaabkan ayaa loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaan u gudbi doonaa qodobka kale oo xiga oo ah qaabka loo sameeyo creating lower third. Lower third-ka waxa way muuqaal ayaa soo diyaarisay. Muuqaalkii waxaad u baahan tahay sida social media-ha meelahan inaad ku soo bandhigtid sida tusaalehan aad ka aragteen WhatsApp-kayga Facebook-ga meelahan aan ku soo qor lower third sidaas ah. Lower third-ka hadba qaabkaad u sameyn lahayd ayaan u gudbi doonaa qodobka 9aad. Hadba aynu gudgalno barnaamijka. Si aynu u sameyno lower third ugu horeyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalkaada iyo waxyaabaha aad rabtid inaad lower third-ka aad ku dartid ayaad waxaad ku sameynaysaa. waa soo dooranaysaa tusaale ahaan sawirkan ayaan u baahanahay lower third ayaan ku soo daro ama videogaada lower third waad ku soo dari kartaa. waad u jeedin aspect ratio 16:9 ka dhig. Okay ku dhufo. Lower third-ka marka waxaad imaanaysaa qaybtan text-ga ayaad imaanaysaa. Waxaad ka dooranaysaa qaybtan lower third ayaad ka dooranaysaa. Lower third kuwa badan ayaa ku jira marka midka rabtid ayaad isticmaali kartaa. Tusaale ahaan inaad waxaan isticmaalayaa midkan ugu horeey drag and drop ayaan ku sameynayaa. qaybta text-ga ayuu imaanayaa. Play markaan u dhaano lower third-kan aynu aragno marka qaabku ku soo gali doono. Waad u jeedin your title here ayaa ku qoran. Marka qaabkaad u edit gareyn lahayd ayaan ku tusayaa. Lower third-kan aad u jeedin qoraalka aad imaanaysaa right click ayaa leedahay. waxaad ku dhufanaysaa edit ayaad ku dhufanaysaa. Lower third-kaada ayaad waxaad ku sameynaysaa tusaale ahaan Facebook ayaan ku qorayaa. Facebook midkan hoose oo kalena waxaan leeyahay Elka Noor. tusaale ahaan hadda markaynu fiirino marka colorska iyo waxyaabo kale waad ka bedeli kartaa.
aanu ku aragno marka intaan play markaan dhahno hadda lower third kan waxaan ku sameeyay edit ayaan ku sameeyay oo ujeedin Facebook qaybtoosan Elkanur ayaa ku qoran marka lower third kuwa badan ayaa ku jira midkaad u baahan tahay aad isticmaali kartaa midkan kale ayaan tijaabinaynaa midkan kale drag and drop ayaan ku soo sameeyay play markaan dhaho oo ujeedin ayaan filayaa marka lower third ka dushiisa aad imaan right click aad leedahay edit aad ka dooranaysaa meeshan aad waxaad ku sameynaysaa waad iska bedelaysaa Adam Noor colorska waad ka bedeli kartaa sidoo kale bold waad ka dhigi kartaa Italy waxaad u baahan tahay aad ka dhigaysaa muuqaalka hadda markaynu play ayaan dhahno aynu fiirino qaabku ku soo gali doono ayanu arkaynaa waad u jeedinayaan filayaa marka saaxiib lower third sidaan ayaa loo isticmaalaa adigoo isticmaalaya Filmora 9 lower third qaabkan ayaa loo sameeyaa mid ku kale oo caadi ah waad samaysan kartaa haddii aad u baahan tahay marka insha Allah waxaynu u gudbi doonaa qodobka kale oo xiga oo ah sida loo sameeyo subtitleska muuqaalada qaabka loo sameeyo aynu baran doonaa insha Allah si aad u sameysid subtitle ugu horreyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalkaada ayaad soo dooranaysaa meeshuu ku yaal adiga yaqaano anaad waxaan soo dooranayaa muuqaalkan ayaan soo dooranaya waxaan rabaa subtitle inaan u sameeyo waad u jeedin hadda video ayaan soo doortay si aan subtitle aan ugu sameeyo waxaad imaanaysaa qaybtan texiga aad imaanaysaa text markaad imaatid waxaad ka dooranaysaa subtitle ayaad ka dooranaysaa ilaa 15 nooc oo subtitle ayaa ku jiro tusaaleyan midkaan oo kale noo soo qaado subtitle-kan shanaad haddii aad u baahan tahay subtitle-kan muuqaalka waad la ekeysiin kartaa hadda muuqaalka in la ekeysiino kadib waxaad sameyn kartaa hadda aad u jeedin subtitle-kan wuxuu wataa xitaa background oo wuxuu wataa oo black ayuu wataa marka si aad u bedeshid subtitle-kana waxaa muhiim ah qofka codkiisa inaad la socotid haddii aad muuqaal aad turjumaysid ama af Soomaali ha aado ama English ha aado ama waxyaabaha aad u baahan tahay subtitle-ka inaad ku sameysid qofka codkiisa iyo qoraalka inay isla socdaan muhiim waaye marka midka qaabka loo sameeyo baranaynaa hadda waad u jeedin subtitle-kan ayaan soo dooranay right click ayaan leeyahay marka si aan edit aynu ugu sameyno qaybta waxaad ku dhufanaysaa subtitle-ka aad ku dhufanaysaa ugu horreyn right click aad leedahay edit ayaad ka dooranaysaa edit markaad ka dooratid boxigan ayaa kuu soo furmaayo waxaad rabtid ayaad ku qoraysaa marka aniga waxaan leeyahay iskaga qorayaa waxaad u baahan tahay markaad ku qortid kadib markaad dhameysid haddii aad u baahan tahay kana waad u jeedin hadda intaan aan sameynay aan ku qornay midkan kale haddii aad u baahan tahay waad iska delete kartaa ama adigoo sameynaya waad iska tirtiri kartaa control del ayaan taabanaynaa del markaan ku dhufto waan iska tirtirnaa waad u jeedin midkan kale inta noo keen waad u jeedin marka qaabkan ayaa loo sameeyaa subtitleska muuqaalada oo la turjumayo marka waxaa muhiimsan qofka codkiisa iyo subtitle-ka qoraalka inay isla socdaan ayaa muhiimsan marka walaalayaal subtitle adigoo isticmaalaya Filmora qaabkan ayaa loo isticmaalaa hadaba waxaynu u gudbi doonaa insha Allah qodobka kale oo xiga oo ah qaabka end screen-ka qaabka videoga maxad celintiisa videoga muuqaalka markuu dhamaado qaabka loo sameeyo gudbi doonaa insha Allah si aynu sameyno end screen-ka ugu dambeeya muuqaalka oo maxad celinta muuqaalka qofka soo saaray shirkadda soo saartay short film haduu ahaa short filmka magaciisa actorka magaciisa qof kasta oo kamid ah oo muuqaalkaas ku jiray short filmkaas magacyadiisa qaabka loo soo bandhigayo ugu horreyn waxaad soo dooranaysaa muuqaalkaada aad soo dooranaysaa aniga waxaan rabaa inaan u sameeyo tusaale ahaan sawirkan ayaan soo dooranayaa sawirkan baan soo doorto sawirka markaan soo doorto waxaa muhiimsan muuqaal inaad ku sameysid tusaale ahaan hadda muuqaal ahaan ayaan ka soo qabanaynaa kan inuu yahay sawirka marka end screen-ka qaabka loo sameeyo waxaad imaanaysaa markuu sidan uu kugu diyaarsan yahay muuqaalkaada dhamaadkiisa waxaad keenaysaa timeline-kana waad weynaysanaysaa si fiican si aad u aragtid si fiican aad u aragtid kadib qaybtan texiga aad imaanaysaa waxaad ka dooranaysaa endiga ayaad ka dooranaysaa end screen-ka wuu noocyo badan yahay ilaa 14 xabaa ku jira marka midkan ugu horeeya ayaanu practice ku sameynaynaa inuu ku arkaynaa insha Allah markaad soo dooratid end screen-ka qaabkan ayuu kugu soo muuqan doonaa play markaan dhaw waad u jeedin videoga dhamaadkiisa markii la gaarsiiyo tan ayuu kugu soo muuqan doonaa marka waxyaabahan qaabkaad u edit garan lahayd ayaan ku tusayaa end screen-ka waad imaanaysaa marka qoraalka ayaad imaanaysaa oo motion-ka sameynayo oo socdo dushiisa ayaad right click leedahay edit ayaad ka dooranaysaa isku mid waa waxaan dhan isku qaab ayaad u edit garanaysaa qaabkan ayaad u sameyn kartaa
adigoo isticmaalaya Filmora qaabkan ayaad u sameyn kartaa end screen-ka. End screen-kana waxaa muhiimsan inaad diyaarisid. hadda end screen ima diyaarsano, laakiin muhiimaddu waxaa waaye inaad fahantid qaabka loo sameeyo. kadib end screen-ka ayaad waxaad ku sameynaysaa midkaas soo qaadatay edit ayaad ku sameynaysaa. midkan hadda inuu iska tuurno, mid kale ayaan soo qaadanayaa, midkan kale ayaan soo qaato. kadib meesha ugu dambeeya muuqaalka ayaad keenaysaa. muhiim maahan qaybta hore inaad keentid, ilaan qaybta hore looguma talagalin end screen-ka. play markaynu dhahno hadda end screen-kan aynu fiirino, play markaynu dhahno aynu fiirino, hadda waad u jeedin hadda end screen-kan qaabkan ayuu u samaysan yahay. like waxaa waaye filmaantii hindiga ayaad ku aragteen, ayaan filama filmaanta ayaad ku aragteen end screen-kan. marka end screen badan ayuu leeyahay. end screen qaabkan ayaad u sameyn kartaa adigoo isticmaalaya Filmora. haddaba waxaan u gudbi doonaa insha Allah qodobka kale oo xiga oo ah inaanu sameyno rendering-ka. waa meesha ugu dambeysay aynu maraynaa. rendering-ka qaabka loo sameeyo videogaada waxyaabaha uu ku saabsan yahay oo idil markaad dhameysid qaabkaad aad produce aad ku sameyn lahayd aad u soo saari lahayd aynu baran doonaa insha Allah. ugu horeyn waxaynu soo dooranaynaa si aan rendering aan u sameyno ama produce qaabka loo sameynayo. muuqaalkan ayaan soo dooranayaa. muuqaalkan markaan soo doorto waxaan keensanayaa qaybta timeline-ka ayaan keensanayaa, drag and drop ayaan ku sameynayaa adigoo isticmaalaya Filmora. dhowr siyaabood ayaad waxaad u sameyn kartaa exporting ama rendering-ka. midkan aad u jeedin hadda waxaa waaye export waaye. sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa, aad u jeedin exporting waaye. sidoo kale meeshan waxaynu ku haysanaa export kale aynu ku haysanaa. waxaad ku dhufanaysaa create a video iyo abuur muuqaal. marka waxaad isticmaali kartaa labadan qaab ayaad isticmaali kartaa, export-kan iyo export-kan ayaad isticmaali kartaa. marka hadda midkan ayaan ku dhufanayaa. sidoo kale waxaad dooranaysaa mp4 ayaad dooranaysaa. name ayaad u bixinaysaa muuqaalka, magaciisa ayaad ku qoraysaa meeshan. save to meeshaad dhigan lahayd folderka ayaad soo dooranaysaa. haddii aad u baahan tahay desktop-ka, haddii aad u baahan tahay folder gooni ayaad soo dooranaysaa. qaybtan waxaad ka saxaysaa resolution-ka. resolution-ka ugu fiican waxaa waaye hadda ilaa iyo wuxuu u kala qaadayaa quality-ga videoga, best iyo better iyo good ayuu u kala qaadayaa. meeshan markaad fiirisid si aad low MB aad ugu soo saartid encoder-kan waxaad isticmaalaysaa H.264 ayaad isticmaalaysaa. labadan sidoo kale midkan kore ha isticmaalin, midkan kore aad u badan yahay. resolution-ka markaad fiirisiinna ani badna waxaan isticmaalaa 1920 1080 ayaan isticmaalaa. waad isticmaali kartaa midkaad u baahan tahayna. meeshan waxaad ka dooranaysaa resolution-ka aad kasoo frame rate-kaadana ayuu ka badanayn 30. haddii kale waxaa waaye muuqaalka size-kiisa aad u badan doono. bit rate-kaana haddii uu 80,000 uu gaaro waxaa aad u fara badan, ilaa waxaad ka dhigi kartaa 4,000 ka dhigo. sidoo kale intan kale codka audio-ha waa automatic-gan sidan ayaa ku fiican. kadib waxaad ku dhufanaysaa okay aad ku dhufanaysaa. hadda aad u jeedin resolution-ka 1920 1080 waa 4K waa muuqaalkan. size-kiisuna wuxuu ku fadhiyaa 15.6 MB ayuu ku fadhiyaa. duration-kana wuxuu soconayaa 30 ilbiriqsi ayuu soconayaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybtan hoose export ayaad ku dhufanaysaa. sidaas ayuu wuxuu ku bilaabayaa video converting ayuu ku bilaabayaa uu kugu dhameynayaa. meeshan markaad fiirisiin waxaa waaye finish action. markuu dhameeyo inuu ku soo ogeysiiyo timing-ka, meeshan sound remember inuu ku soo ogeysiiyo meeshan ha ku saarnaato. waad u jeedin hadda exporting-ka markuu dhameeyo aynu arki doonaa insha Allah muuqaalka siduu ku soo bixi doonaa haddii aan leedno. waad u jeedin ayaan filayaa hadda waxaa waaye mission completed. wuu noo dhameeyey converting-ka ama rendering-ka. waxaad ku dhufanaysaa find target. meeshuu noo geliyey natus waaye videoga folderka uu ku save gareeyay. waxaan ku dhufanayaa marka find target ayaan ku dhufanayaa. find target markaad ku dhufatid si toos ayuu ku geyn doonaa muuqaalka meeshuu ku save gareeyay. waad u jeedin si automatic ahaan ayuu soo qabsan doonaa. midkan waxaa ku qoran my video ayaa ku qoran. inta markaad fiirisiin waxaa waaye my video. hadda magac uma soo bixin, my video un ayaa ku qoran. markaanu play aynu dhahno waad arki kartiin videoga wuxuu noqon doonaa 4K uu noqon doonaa insha Allah. wuxuuna ku fadhiyaa wax dhan 15 MB ayuu ku fadhiyaa. waad u jeedin ayaan filayaa rendering-kan qaabkan ayaad u sameyn kartaa adigoo isticmaalaya Filmora 9. marka walaalayaal course-gan ayaan jeclaysay inaan la wadaago oo ku saabsan Filmora. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan waxyaabo badan aad ka faa'iideysateen. walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.